markii la aasaasay jabhadda uu gadhwadeenka ka yahay Suldaan Abibakar Cilmi Wabar ayaa waxa ay sheegeen in gobolka Awdal uusan helin wixii xaq ugu lahaa Somaliland inteeda kale jabhadda uu hogaaminayo suldaanku ayaa waxa ay dilaacday waqtigii xukuumadii madaxweyne Siilaanyo ay dalka ka talinaysay taas oo weerar ku dhufo oo ka dhaqaaqa ka geysatay gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal weeraradaasi oo dhaliya dhimasho iyo dhaawac ase ahaatee wadahadal dheer oo ay dhexdhexaad ka ahaayeen waxgaradka ka soo jeeda gobolka Awdal oo dhexmaray xukuumadii waqtigaasi iyo jabhadda ayaa is-afgaransho markii dambe ku soo dhamaaday si kastaba ahaatee waxaa mar kale gobolka Awdal dib uga dilaacday jabhadda uu gadhwadeenka ka yahay Suldaan Abibakar Cilmi Wabar taas oo maalmihii la soo dhaafay weerar ku soo qaaday saldhigga dhexe ee magaalada Boorame waxaase dhawaan warbaahinta la hadlay odayaasha beesha uu ka soo jeedo Suldaan Abibakar Cilmi Wabar waxayna sheegeen inayna ku raacsaneen suldaanka iyo jabhadiisu hawsha ay wadaan waxaase xusid mudan in mar aan shacabka mikrofoonka la marnay dhalinyarada magaalada Boorame oo iyagu bulshada ka ah 75% ay si buuxda u taageersan yihiin suldaanka iyo jabhadiisa dhalinyarada oo fikirka ay ka aaminsan yihiin suldaanka iyo jabhadiisa ka hadlaya ayaa waxadaladoodii kamid ahaa Suldaan Abibakar Cilmi Wabar cid kasta oo reer Awdal oo magaca iyo masabka magaca Awdal sheegatay waxa waajib ku ah inay Suldaan Wabar taageeraan si xaqa adigu aad leedahay loo soo rido si xaqa hooyada dulman loo soo rido waayo haddii uu carar noqday ina adeerkii Faysal Cali Waraabe Suldaan Abibakar Cilmi Warna waa ina adeerkayo waa nin tolkaya waa nin reer Awdal waa nin masabka iyo magaca Awdal ku abtirsada weey waa nin Soomaaliyeed waa nin reer Awdal waa nin diiday dulmiga cadaalad darrada xumaanta ay wadaan kooxda asal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa cid kasta oo ka soo horjeesata mabda'a Suldaan Wabar iyada ka shalayn doonta maalmaha kamidana waxay ogaan doontaa xaqa uu Suldaan Wabar sheegay inuu wax jiran yahay waxaan maqlaynaa xalay toole in odayaal isku sheegayay inay Suldaan Wabar cambaareynayeen nama matalaan koofiyad bacle Suldaan Wabar maanta hadii uu u baxay danta gobolka Awdal oo ma garanaysaa duurka u galay maskaxdan duurka anaguna kaga jirnaa oo waanu la jirnaa waxaan u sheegayaa maamulka Somaliland waxa jira odayaal matala gobolkan Awdal odayaashaas kulay way soo arkeen dawladnimo waxay tahay way soo dhameysteen burbur way soo arkeen dhalinyarta yaryar ee ku nool Somaliland ama gobolka Awdal waxa ay diyaar u tahay inay xaqooda ku soo ritaan maskaxda iyo muruqa اعتراف haday noqoto anaga Soomaaliland اعتراafka la jecel hadii ay noqoto xaqayagana muruqayagana ku keenayna hadii Ilaahay raawo raggu way ku nool yihiin Hargeysa Boorame way ku nool yihiin hadaad gobolka ragga la baxdo yaa hadaad la baxdo ma garanaysaa gobolka SNM iyo waxa de gobolka Awdal baa noo Axmed Guri baa naga soo jeedo geesinimada looma tilmaamo haduu Ilaahay raahdo la ogolaani maayo xaqayaga in lagu tunto ninka Hargeysa joogow ama ilmaha yar Hargeysa joogow ee ku barido ma garanaysaa ku murmi doona aabahay baa mujaahid ahaa ee anagu waanu ku soo dhalanay 20 sano baan raadinaynaa ma garanaysaa idinku halka ixtiraaf ka raadis 20 sano anagu 20 sano xaqayga raadinayna hadii la siin waayo xaqayaga boqolaal iyo ma garanaysaa kumanaan amuud dhigta oo eela dhigta oo cilmi yaqaan ah ya qoriga qaan doona hadii ilaa mahal marka koobaad haddaan ka hadlo arinta Suldaan Wabar xiisada Suldaan Wabar ee ka jirta gobolka Suldaan Wabar oo 100% waan taageersanahay because of Suldaan Wabar wuxuu diraya xaqayga oo ah 20 sano ama 30 sano Soomaaliland dhisan tahay xaqaygii baan ku weynay Soomaaliland ma aha jibhad leeyahay wadan leeyahay laakiin Soomaal ay saaqlayn waxa la yiraahdaa saaqlaan baa Soomaaliland ma aaminsan anagu Suldaan Wabarna 100% waan taageerana maanku baa ka baxo lama sheego كان لكن سو حفرت لو فيقان قرن لا ولي انا علامته نغو دجي وان تاغيرتنا هي انغا شيكلا تاغيرسن قالين وان كنahay annagana soo xareeysan ma sha Allah waxaan horta ku taageersanay Suldaan Wabar bixitaanka uga baxay jabhadnimada waayo maxaa anaga jabhadeedo kaliya dib u dhigaya oo qarinaya waad ogeydeen tii carre Faysal Cali Waraabe wuxuu markii lagu yiri maxaa soo qaban weyday oo awoodda Soomaaliyada ugu qaban weyday wuxuu ku jawaabay waa in adeerkay annagana deekaasi waa adeerkay waxaan
aaminsannahay horta nimaan dagaalin wax ma helo iyagoo dhibtii ay ka baxeen waxay ahayd daarood baanu gumaysanayaa hadda annaga halkii daarood ka galnay ciise xaggan naga soo weeraray iyagu halkan soo weerareen marka yar iyo weyn waxaan go'aan ku gaadhnay suldaan wabar go'aankiisaan qaadannay haddii aynu nahnay dhallinyarta gobolka awdal waxaan had iyo jeer u taagannahay waanu taageeraynaa suldaan wabar sababtoo ah suldaan wabar waxa uu u dirirayaa xaqa lagu dulmiyey dhallinyarteennii gobolka awdal dhallinyartii aqoonta la soo kacday madaxa la soo kacday marka la caburiyey kartidoodii laga qaaday ayna ka hadli karin buu dirirayaa marka uu leeyahay faysal cali waraabe aniga kan caara waa in adeerkay dadkana waa in adeerkay annaga kana waa in adeerkay wuxuuna u nool yahay xaqeega saxane magaalada Boorama.